halkan waxaa loo soo galay Facebook iyo hasaawihii sheekh wuxuu yiri dhalinyar badan ayaa Facebooka waxa ugu jira habla aan maxram aanay u ahayn ehelna ayna ahayn guursadana diyaar uma habuuri balse waxa si soo noqonaysa Facebook uga wada hadlayaan iyagoo walaaltinimo ayaa naga dhaxaysa sheeganaya sida darteed maxay shariicada islaamku qabtaa arrinkaas iyo xiriirkaasi hasaawaha muddada dheer socday buu sheekh maxamed muddo dheer qaadanaya xataa sanado diinta islaamku maxay ka qabtaa mase bannaan tahay waxyaabaha lagu wada xidhiidhay tawaasul ijtimaaci la yidhaahdo daayartuna aad ay u adeegsato marka hore dardaarankaaynu ka bixinaynaa waxa weeye dadku inay ilaahay ka cabsadaan weliba daayartu oo ay ku laxa jeclaabaan diintooda wakhtigooda xubnahooda aragga iyo faraha ay wax ku qoreen ay ka mid yihiin oo aanay xaraamta u adeegsan diinta xaraamta loo adeegsado xisaabtooda aad bay u badanaysaa aakhiro walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aad kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula dhib badan baa ka jiro oo dad badan oo meel kaleba aan teginba bahalkaasaa kharaabiyey marka ilaahay ka cabsadoo iska ilaaliya wixii wanaagsan u isticmaala qofkaa naftiisa hakin karayna ha iska daayo gabadha jinnabi oo lala sheekaystoona guur iyo wax kale looga baahnayna waa xaraam walaa taqrabu zina markay culimmadu sharxayaan sinada ha u dhowaanina wadooyinka loo maro dhan baa xidhaya sida la hadalkii dhegaysigii aan idhaahno isla gooni noqoshadii taabashadii eegmadii la eegayay waxaasoo dhan walaa taqrabu zina bay soo gelayaan